إن سمرت ما قيب كان نقول دعاية أبابلون أو قبيليسن ما دام أورين سبورت سيهاي أو على الشقة كلهين فالدنبيادين النوعانة محكمة دو waxay ballan qaadaysaa haddii Cabdi Xafiid ku guul dareysto damaciisa iyo jaceylkiisa ku saabsan inuu hanta xabsi queen oo ay go'aan adag ka qaato ay laasho jaceylkiisa in maxkamaddu ay bixinayso qarashaad dhan $10,000 oo ku saabsan in Cabdi Xafiid gabadha uu rabo uu guursan karo lacagtaasna uu isticmaali karo arooskiisa lacagtaasina waxaa la siinayaa mar kasta uu caddeeyo inuu ka tanaasulay mowqifkiisii hore uuna diyaar u yahay maadaama nin sportso qarankan u baahan yahay uu yahay inuu reer yeesho lacagtaasina waxaa magaceeda la yidhahdaa sabarsiin looga sabarsiinayo damaciisii iyo jaceylkiisii dulgeeyey ku qasbay inuu yidhaahdo Queen Xabsaan jeclahay wilna uu ku adkaysanayo lawyer u soo qabsaday kala soo qabta Cabdullaayade daayro waa maasan tahay hal mar ma hadli karaa qalad maanta ya aniga gabadhana rabaa raaligeli inaan siiyo si qaldana wax la igu soo diray barnaamijkeedana saan uma ogeen mar dambe oo telefoon badan soo galeen reer Nairobi ila soo hadleen kulley wax qaldan iyo waxa la igu yiri maxay tahay barnaamijyo kaleeto iyo hadda markaa maxkamadda dhageystay barnaamijkan iyo cadaaday gabadha afkeedana ay ku hadashay wajigeedana aan qiimeeyay aan arkaysay oo hadlayso waxa ogaaday waxyaabihii lii soo gudbiyeen waxba ka jirin marka xabsa sorry maadaama hadaay inta qol soo furta arintaada ka hadlay aan eri gabadhan qalad ay gashay wiil Soomaaliyeed qiyaantay marka karaali noqo labada qofna de waa wada soco karaan waana kala tagi karaan sorry arintaas ka leeyahay midda kale afka lawyerka ugu sareeya maxkamadda anoo ku hadlaayo kiiskan hadaay si qalad u soo dhacay dadkii qolkiga ila joogay dadka hadda gadaal ka imaadana waxaan leeyahay de fariin qaldan waa la soo gudbi karaa qofkan wuu gudbi karaa don't worry adoo qaladkiis ka soo noqdo laakiin wax walba uga sumcad fiican marka excuse me dhamaantiin هذا فرد بهذا ما يدش حبس كوين marka u soo laabto kiiskaaga adiga xagaaga maxkamaddu ay ku faraysaa faylkaaga marka dib loo fiiriyay waxa ka soo baxaya eedayn la xiriirta inaad rag badan jacayl la jishay weli ay ku jecel yihiin buuqaas ayaa meel walba ku yaala maxkamaddu waxay ku faraysaa jacaylkaaga inaad xakamayso you know that fiir deeq qodobada lagugu eedaynay waxaa weeye intaasoo fayl ayaa la hayaa oo wiil aad jacayl la jishay oo weli ku jecel arrintaasina waxay noqon kartaa dhisaysar ma fahmi daayir listen waxaa kuu sheegayaa anigoo daacad oo waxba samaynin kiis noocan camal hadduu public yahay hadduu private yahay liila imaanaa anigu wixii waa ka dhex baxaa ayaga still jacaylkiyaa ku jiro ma ka tegi kare maya marka ma tiga sababtoo ah uu jabra dhageystay listen anigoona waxba ka samaynin uu jabra dhageystay daayir dadku qalbiyadooda ha ilaashadaan ma ilaasha karaan dadku qalbiyadooda dadka waa lagu dhex qubaysanayaa gar yaqaan lawyer ما داير لكن dareemaya laakiin daayro laakiin gabadhan xurriyada leedahay Soomaan daayro taas xisaabta ku darsano maadaama dadkii maxkamadda ugu sareeyaan mid aan dhaqaana daayir aniga haddii aan ka wiilka Cabdi Xafiid waa nin qaran dhageysta daayir adiga dhageyso ana waxa ku sheegayaa adiga mid aan aqaana haddii aan ka jeesto ma kugu soo jeesanaay jacaala gadaal ka imaaday jacaala inta maray jacaala inta ka baxay ma aqaani mar haddii isfaham weyno khalaas daayro ma maqashay gudoomiye hal mar suu marka ay maqlaysaa daayro Cabdi Xafiid